Bismillahirrahmanirrahim. Awalan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cashirkan waxa uu ku saabsan yahay maadada xisaabta fasalka 8aad. Waxaan idin soo jeedin doonaa insha Allah anigoo ah Macallin Cabdiwahaab Cabdi Maxamed. Cashiradan waxaa kala socon kartaa ayagoo taxana insha Allah tan YouTube-ka aqoon kororsi xisaab. Marka qorto aqoon kororsi waxaa raacinaysaa xisaab. Haddaadan raacin xisaab kuma soo bixi doono channel-ka magaciisa. Su'aasha koowaad waxaan la siiyay 2 lagu dhuftay 3 oo ku jibaaran 5 2 oo ku jibaaran 4 lamasta waxaan la weydiiyay minus 4 oo ku jibaaran 3. Su'aasha koowaad oo ah 2 lagu dhuftay 3 oo waxa ku jibaaran dhammaantood waxa ku jibaaran 5 waan soo qaatay. Su'aasha marka meesha noo saaran waa muujiyaha wuxuu noo sheegayaa tiradan inta jeer la isku dhuftay waa 5 mar. 2 lagu dhuftay 3 ayaa waxaan ku furayaa ilaa 5 mar ayaan tirinayaa. Waxaan leeyahay bracket furo 2 lagu dhuftay 3 soo xir bracket-ka oo lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3 oo lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay 3 oo lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay 3 2 3 4 oo lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay 3 oo ilaa 5 mar. Sida markaan 5 lagu furo waxaan sameeyaa inaan ka saaro bracket-ka ama braces-ka. Maxaan sameeyaa marka waxay tahay waa inaan ka saaro bracket-ka. Waa 2 lagu dhuftay 3 oo lagu sii dhuftay 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 2 lagu dhuftay 3 waa 5 mar. 1 2 3 4 5. Saa markay qoran tahay tirooyinka isku midka ah ayaan dhinac soo marnayaa. 2 waxaan haystaa 5 mar. 1 2 3 4 5 dhinac soo maray. 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2. Lambar 3 sida mid ah ayadana 5 mar qoro. 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3. 1 2 3 4 5. Su'aasha lagu weydiiyay waxay ahayd u tibxahan soo socda sansaan jibaar. Marka tibxahan meesha noogu qoran sansaan jibaarkeedu wuxuu noqonayaa base-kan ama salkan hoose oo min labada ah waa isku mid halka soo qaado. Meeqa mar aan isku dhuftay 5 mar oo ku jibaaran 5 oo lagu dhuftay 3dan ayadana waa isku mid halka soo qaado. meeqa mar isku dhuftay 5 mar waaye. 1 2 3 4 5 mar. Marka sansaan jibaar wuxuu noqonayaa 2 lagu ku jibaaran 5 oo lagu dhuftay 3 ku jibaaran 5. Hadda waxaan shaqeeyay su'aasha koowaad oo la weydiiyay. Waxaan ku xidhi doonaa su'aasha labaad. Su'aasha labaad waxaan la weydiiyay 2 oo ku jibaaran 4 wuxuu la mid yahay 2 oo ku jibaaran 4 wuxuu la mid yahay. Tiradan waxaan ku furi doonaa ilaa iyo 4 jeer maadaama 4 mar la isku dhuftay. 2 lagu dhuftay oo ku jibaaran 4 marka waxaan ku furi doonaa ilaa 4 mar. Waxaan haysaa 2 bracket furo lagu dhuftay lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay oo lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay oo lagu sii dhuftay 2 lagu dhuftay waxay la mid tahay waa 1 2 3 4 maadaama muujiyaheedu uu yahay lambar 4 uu yahay. Waxaan isku dhuftay ilaa iyo 4 mar. Waxaan dhinaca marnayaa xarfaha isku midka ah. Lambar 2 ku bilaab 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 bracket soo xir oo lagu sii dhuftay bilaab haddana lagu dhuftay lagu dhuftay lagu dhuftay bracket soo xir. 2 waxaan isku dhuftay 4 mar. waxaan isku dhuftay 4 mar. Marka waxay noqonaysaa salkan hoose waa isku mid halka soo qaado. Muujiyaheedu wuxuu noqonayaa 1 2 3 4 mar ayaa isku dhuftay oo ku jibaaran 4 oo lagu sii dhuftay aan soo qaado. Muujiyihiisa marka muujiyaheedu wuxuu noqonayaa 4 mar ayadana waxaan isku dhuftay 4 mar. 1 2 3 4
muujiyaha aadana wuxuu noqonaa afar marka su-aashan lagu weydiiyo way ahayd laba lagu dhuftay a oo ku jibaaran afar jawaabteeda waxay noqotay labo ku jibaaran afar oo lagu dhuftay a ku jibaaran afar su-aashan kalo saddexaadne adiga ayaan kaaga tagay inaad ka shaqayn karto isku day insha allah cashirka kan xig wuxuu noqon doonaa isu qaybinta jibaarka waana wuxuu ka bilaaban doonaa bogga 22 hadda cashirka sharxayna wuxuu ahaa bogga 21 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.